Nin taajir ah oo deggan guri dabaq ah ayaa waxaa deris la ahaa reer faqiir ah oo ku nool aqal qoryo iyo caleemo ka samaysan. Taajirku wuxuu shaqada ka yimaadaa xilli dambe isagoo daalan oo carruurtii seexdeen, subaxiina degdeg ayuu u kallahaa. Xaaskiisu waxay galabtii daaqadda ka daawataa reerka faqiirka ah oo aabbahood casarka soo noqdo, oo guriga hortiisa shaah loo dhigo, oo ciyaalku dhabtiisa ku cayaaraan, oo ay xaaskiisu wada sheekaystaan. Ninkeedii taajirka ahaa ayay uga cabatay nolosha aan qoysku wada joogin, oo isaga iyo ilmuhu aanay is arkin. Waxay ku tiri, bal eeg reerka deriska ah iyo raaxada ay ku nool yihiin. Taajirkii inuu xaaskiisa hadal wax ugu sheego wuxuu ka doorbiday inuu indhaheeda wax ku tuso. Wuxuu u tegay ninkii faqiirka ahaa, wuxuu ku yidhi, walaal, muddo ayaan deris ahayn, xiriirkeennuna ma fiicnayn. Wuxuu u dhiibay lacag 100 kun ah oo uu ku yidhi, waa xaqii derisnimada ee reerka xoogaa ugu soo gad. Galabtaas xaaskii taajirku sideedii ayay daaqaddii u soo fadhiisatay si ay u daawato noloshii wanaagsaneyd ee reerka. Laakiin wax aanay filayn ayay aragtay, oo ninkii intuu meel gees ah derin dhigtay oo tarmuus shaaha qaatay ayuu xaaskiisa ku yidhi, yaan ilmuhu ii soo dhowaan. Wuxuu galay xisaabtan iyo inuu qorsheeyo siduu 100 kun ka yeeli lahaa. Deen lagu lahaa miyuu bixiyaa? Guriga miyuu ku qurxiyaa? Ganacsi miyuu geliyaa? Hadba ilmo yar oo hooyadii ka soo baxsaday ayaa dhabta uga soo booda oo riyadii uu ku jiray ka qariba. Markaasuu dharbaaxo iyo qaylo isku daraa. Taajirkii markuu yimid ayuu xaaskiisii ku yidhi, bal ii waran maanta. Waxay tiri, waa khayr, laakiin reerkii deriska ahaa maanta wax weyn ayaa ka qaldanaa, oo si aanan weligay arkin ayuu ninkii fiicnaa isku beddelay ilaa uu ilmihii u gacan qaaday. Taajirkii wuxuu u sheegay in sababta uu ninkaas uga fiicnaa ay ahayd wax la'aanta. Saaka ayaan 100 kun siiyey, marka 100kii kun ayuu xamili waayey oo sidaa isugu beddelay. Aniguna malaayiin ayaan maamulaa. Haddaad rabtid inaan casarkii imaado, aan xoolaha iyo guriga iska iibino ama si kale isu dhaafino. Lahaanta iyo la'aantuba waa imtixaan. Mid walba qofkii xambaari kara oo u adkaysan kara ayaa ka gudbi kara. Waa qalinkii qoraaga waayajoogga ah, warbixinadiisa aadka looga daba dhacay ee Cabduqaadir Diriye. Saaxiibayaal, inaan kala faa'iidaysano, muujino in wanaaggu yahay dariiqa lagu helo nolol yididiilo leh, waa hadafkeena. Ka daawo page-kan muuqaallo kobcinaya fahankaaga nololeed. Sheekada aad daawatay maxaa kaaga baxay? Gaarsii oo u faa'iideey asxaabta kale. Muuqaalkana hadda inoo sheer gareeya.